waxa uu noqday mid ka mid ah madaxda adduunka ugu badan dhanka adayga iyo diktatoriyadda. weliba isagu waxa uu barasii dheereeyay raggii uu ku dayan jiray ee Napoleon iyo raggii la xilliga ahaa. 25% dhaqaalaha dalkiisa ayuu ku bixiyay xafladii caleemasaarkiisa. taasina waxay xagga kale ka rogtay dhaqaalihii dalkiisa oo faqri iyo gaajo loogu baktiyay xafladaasi kadib. John Bokassa, madaxweynihii hore ee dalka Afrikada Dhexe, waxa uu xukumayay intii u dhaxaysay sanadihii 1966 ilaa sanadkii 1979. kama aanu helin kumana aanu qancin magaca madaxweyne. sidaasi darteedna waxa uu bedelay magacii Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Imbraadoriyadda Afrikada Dhexe, isagoo halkaasi ka aasaasay imbraadoriyad weyn. isaguna waxa uu isu magacaabay imbraador jooga qarnigii 20aad. xafladii lagu boqorayay imbraadornimadiisa keliya koofiyadii uu soo xidhay ayaa waxaa qiimaheedu gaadhaysay $5 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Masar oo uu booqanayay ayuu ka caashaqay gaadhi uu ku dhex arkay. kolkii uu codsaday ee loo diidayna waxa uu xidhiidhkii diblomaasiyadeed u jaray dowladda Masar. waxa uu ku jiray diinta Islaamka hal maalin iyadoo shahaadada loogu qabtay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. waxayna ahayd maalin uu lacag kaga cunayay madaxweynihii Qadaafi ee dalka Liibiya. waxa uu la baxay Salaaxudiin Axmed Bokassa. hase ahaatee markii uu xuduudda dalka Liibiya weydaartay ayuu halkiisii hore ka miisay kuna noqday diintiisii hore ee Kiristaanka. madaxda qaar ayaa mucaaradkooda xidha, qaarna way dilaan, halka qaar kalena ay dalka ka caydhiyaan. laakiin Master Bokassa intaasiba ma aanu samaynin ee waxa uu qali jiray mucaaradkiisa, kadibna waxa uu cuni jiray hilibkooda. maalin ayuu sameeyey xaflad ballaadhan oo uu isugu yeedhay xukuumaddiisa. goortii ay cuneen ee dhergeenna waxa uu sheegay in waxa ay cuneen uu yahay hilibka mid ka mid ah saaxiibadoodii wasiirada la ahaa. xaaskiisa ayaa lahayd warshad soo saarta dharka, waxayna sheegtay in ay jamatay in loogu xidho kooto warshadeedu inay soo saarto dharka dhammaanba iskuullada imbraadoriyadda. sidii ayaa dhacday, waxaana dharka loogu soo buufiyey ardaydii sawirka iyada iyo ninkeeda. lacagta oo badnayd darteed ayaa carruurtu waxa ay dhigtay mudaharaadyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan ama cabasho lagaga muujinayo dharkan iyo qaalinimadooda. hase ahaatee Bokassa ayaa amray in carruurtan dhammaantood jeelka laga dhaamiyo. 100 ka mid ah oo da'doodu aanay gaadhin markaasi 15 sannadood ayaa iyagana lagu xukumay dil toogasho. waxaa cajiib ahayd in toogashada carruurta qaarkood uu isaga laftiisu ku fuliyey gacantiisa. laynta carruurta kadib waxaa ku kacay ciidankiisa iyagoo taageero ka helaya dowladda Faransiiska ayayna ka tuureen xilkii. Master Bokassa sidaasi kuma aanu hadhine waxa uu damcay inuu ka aargoosto madaxweynihii Faransiiska ee riday oo markaasi doorasho ay qarka u soo saaran tahay. waxa uu soo bandhigay 100 hadiyadood iyo sidoo kale hanti kale isugu jira oo uu siiyey madaxweynaha dalka Faransiiska intii ay ahaayeen labada madaxweyne ee labada dal. markaas laga bilaabana waxaa madaxweynihii Faransiiska kaga furmay gudaha dalka Faransiiska buuq ahaa inuu laaluush iyo hanti ka qaatay Master Bokassa, kuna qaatay awoodda dowladnimo iyo madaxweynenimadiisii. sidaasi ayuuna ku waayay xilkiisii sanadkaasi. isla markaasina ay adduunka ku wada joogeen Bokassa iyo madaxweynihii Faransiiska oo labaduba shacab ah. Bokassa oo markii xilka laga tuuray u cararay dalka Faransiiska, beriye kadib ayuu dib ugu soo laabtay dalkiisa, waxaana lagu maxkamadeeyey dembiyo ay ka mid ahayd cunista hilibka dadka. hase ahaatee waxa uu isku difaacay in aanu isagoo cunin ama jeclayn hilibka bani'aadamka, maadaama sida uu sheegay hilibka bani'aadamku uu yahay mid dhanaan. su-aasha la isweydiin kara ayaase waxay noqonaysaa sida uu ku ogaaday inuu hilibka dadku dhanaan yahay mar haddiiba aanu dhadhamin.